وبشي شعبان أين كل أحجرناه ورمضان كهر رئيسة بشا شعبان وحيابها آت كوهبون وحكم ذا إلا وقفا إذا استسدوا النبي محمد وقفا إذا سنشري عليه الصلاة والسلام وأي عيدا إنه قد ينابين لنا الرسول كانيا وحو النبي حسي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد أصحابي قال الله إذا سؤال ويديه وحروحا كأركيا بشان شعبان أديقوا آد وقد ذا لي صومك إناد صومته محاجرة سببها مرقى رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم بشان إلهي وحو كوريا على عملك الضومها مرقى أنونا وحان جعلها عمل كيغا إن إلهي الله كوريا لو لهرقيا أنيقوا صوما سيداس النبي كجوابه عليه الصلاة والسلام مرقى علماء waxay leeyihiin saddex jeer baa la kor yeelaya amalka mar waxa weeye maalin walba sidoo nabigu sheegay عليه الصلاة والسلام حديثkii صحيح مسلم iyo bukhari ba ku sugnaa waxa uu leeyahay taaqabuna fiikum malaa'ikatun bil-layli wa malaa'ikatun bin-nahar waxay sukiin bedelaya habeenkii maalintii malaa'ik oo amalka ka qoraya adoomaha oo warbixintii ka qaadaya inta aynu iska mashquulsanayno warwareegaynayno buuqaynayno hadlaynayno dhan walba u socono junuud ilaahay col dhan baa la inagu soo ururiyay oo shaqadoodu tahay inay inaga wax inaga diyaariyaan marka casarkii iyo subaxii bay isbedelaan qolo waliba warbixintooda ilaahay bay u geynayaan warbixinta ayaa laga qaadaya adoonka wixii uu shar sameeyay wixii uu khayr sameeyay wuxuu ku hawlan yahay adiguna isma ogin inaguna isma ogin baxar kale in ku jirnaa warbixinta labaad waxa la gudbiyaa usbuuc walba ama toddobaadkii walba hal mar nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo saxiixa wuxuu ku xusay abi hurayra warinayo maalin wal oo khamiisaba adoomaha camalkooda waa la rafciyaa ilaahay baa loo geeyaa falaa yuqbalu camalu qaadici raxim marka lama aqbale waa la soo celiyaa qofka qaraabada gooya camalkiisa riwaayo kalena wuxuu tilmaamayaa ma xadiid kale maalin wal oo khamiis iyo maalin walba oo isniinaba malaa'iktu warbixinta ilaahay bay u geeyaan camalka adoomaha camalkii adoomaha ayaa ilaahay loo bandhigaa hebel waxaas uu sameeyay hebel ayaa waxaasay samaysay halkaas uu maraya sharkiisu waa inta khayrkiisu waa inta ilaahay baa la horgeynaya subxaanahu wa tacaala awoodda ilaahay ballaadhana intaasoo khalqiga mid walba warbixin laga qaadaya oon ilaahay waxba ku adkaanaynin waayo isaga abuurayba oo maamulayo arsaaqaya waxaan iyaga waxba laga dhaafaynin baa xadiidkaa kale uu nebigu ku yidhi labada qof ee muransan ama colaadi dhex taallo ilaahay wuxuu leeyahy andiruu haadayni xataa yasdalixa andiruu haadayni xataa yasdalixa labadaa qof u kaadiya ilaa ay iyagu heshiinayaan hadday cafis iga doonayaan iyagu horta ha iscafiyaan buu ilaahay leeyahy warbixinta saddexaad wakhtiga la gudbinayaana waa mid sanawi ahoo waa sanadkiiba mar sida uu tilmaamaya xadiidkan usaame uu nabiga ka soo warinaya sheegaya shacbaan in warbixinta ilaahay loo gudbiyo subxaanahu wa tacaala faa'iidooyinka ku jira soomka la soomayo shacbaan waxaa ka mid a bay leeyihin culimadu wuxuu noqonayaa كالتمرين على صيام رمضان قفك أوسي تببرنا يا بشي رمضان ووحو لسي قبسنا يا قفك صومك وصومك بأوسي معانانا يا نفتي سيبا وعربيس ميسا يساقوا صومك عادي ولا يوم كعب سنين أي رمضان سوق ليس هريبو كسي بلاضية فإذوينك وحا كم إذا بشتر رمضان إصاص عطاء soomka shacbaan wuxuu uga dhigan yahay kal muqaddima shay hordhaca gogol dhiga oo inagana aragno waxa la socda salaadaha faralka ah sunnayaal ka horeeya iyo sunnayaal ka dambeeya marka waa sunnihii ka horeeya salaadoo kale ayuu uga dhigan yahay sidaa daraadeed bay dadkii cibaadada badnaa iyo ahlul quraanku aad ugu dadaali jireen waxa uu leeyahay salaamatu ibn kuhayl كان يقال شهر شعبان شهر القراء وقتي سلف كوحا لو يقاني بش قراءة تدك قرآن كأخرية بش وذا لو يقاني يوم قرآن كي سوير إلا وين ما وقت أوايين أي رمضان وديار سنيان شعبان بياد السي أخري تشرين هذينك وهي كل عبادة يسنشرين
camru bnu qays almalaa-in isaguna waxa uu ahaa idaa dakhala shacbaanu aglaqa xaanuutahu watafaraqa liqiraa'ati اlqur'aan imaamkaasina mar hadday shacbaan soo gasho dhaqankiisu wuxuu ahaa dukaankiisu xidhan jiro qur'aanka ayuu u bixi jiray dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan markay soo gasho haddaynu noqonno axaadiid dhowra bay soo warinaysaa saxiixa caaisha markaa waxay leedahay lam yakun inabiyu sala allahu calayhi wasalama yasuumu shahran akthara min shacbaan bil uu soomi jiray soom sunno ah oo badan ka shacbaan baa u badnaa fainahu kaana yasuumu shacbaana kullah riwaaya waxay tilmaamaysaa caaisha ay warinaysa shacbaan dhammaanteed buu wada soomayay halka laga yaabo dad innaga inaga mid inay u fikiraan ay yidhaahdaan tamartu iyo iga sii dhammaanine balaan shacbaan aada u sii cuncuno isagu wuxuu usii tababaranayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sii diyaargaroobayaa soomka bisha ramadaan marka riwaayadaas waxay tilmaamaysaa shacbaan dhammaanteed inuu wada soomay riwaayooyinka qaar badan oo caaisha ay warinaysaana waxay xusayaan inuu shacbaan soomi jiray inta badan rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar kale waxa ay leedahay kaana yasuumu xataa naquula qad saama wayufdiru xataa naquula qad afdara walam arahu saa'ima min shahrin qatu akthara min siyaamihi min shacbaan kaana yasuumu shacbaana kullah kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila ama dhammaantiibuu wada soomayay shacbaan ama qeybta badan waxaa jira habeen inagu soo dhow oo loo yaqaano laylata nisfi min shacbaan habeenka ay kala barhantay bisha shacbaan 15 tahay habeenkaa isaga fadli gaaraa ku soo arooray waa xadiid saxiix xasana oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadiidkaas oo nabigu yidhi ilaahay wuu soo degaa habeenka ah oo samada adduunyada u sokayso u soo degaa fayakfiru lijamiici alkhalqi ila almushrika waalmushaaxin khalqigoo dhan wuu dembi dhaafayaa mid gaala iyo mid naxli jiifo mooyaane gaal dee isaga looma dembi dhaafo waxaa kaloo dembi dhaafka habeenkaa ka hadhaya qofka mushaaxinka ee xiqdiga iyo xasadka walaalihiisa muslimiinta u haya bal haddee naxligii dadka naafeeye ee laabta ay isugu wada hayeen ay la wada bukeen gaalnimadii buu la simay rasuulku sala allahu calayhi wasalam gaalnimadii iyo kufrigii wuxuu la simay inaad u xanuunsanayso oo laabtaadu ay la kadeedantay nacaybshiyaha aad u qabto walaalahaaga muslimiinta ah arrin aad iyo aad u weyn labadaas iyagu way ka hadhaan liiska dembi dhaafka laakiin inta kale waa loo dembi dhaafayaa buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam wax fadliyahoo u gaara habeenkaa 15aad intaasaa ku soo arooray way dhacdaa bahjad iyo magac noocaasa in loo bixiyo oo cibaado gaarah iyo sadaqo gaarah iyo salaad gaara dadka qaarkood ay sameeyaan axaadiid baa ku soo aroortay dabcan laakiin kulluhaa daciifa waa waahiya axaadiidtaasi may gaadhin heerkii lagu daliishanayay inkasta oo salafkuna saalix culimmadii hore qayb ka midii ay odhan jireen dee kol haddii habeenkaa xadiidkan fadligan uu ku sheegay wax wanaagsan aanu ku dadaalno haddana axaadiidta baabkaa ku soo arooray may sugmin oo waa daciif wey waxaa jira guud ahaanba soomka sunnaha ah inaynu ku dadaalno oo aynaan fudaysanin innagoo faralkoo qura eeganayna waayo soomka sunnahaahi wuxuu kayd u yahay soomka faradka ah oo maalinta qiyaamaha markuu ilaahay miisaamaya camalada addoommaha u miisaamaya qofka malaa'igta wuxuu ku odhanayaa u eego oo qofkii faralka wax ka dhinmaan sunnaha uga kaba dee haddii meel lagaaga kababa la waayo nuqsaanteeday leedahay marka yaynaan fudaysanin cibaado walba sunnaha ku lifaaqana ku lamaan ee xoojinaya kabaya asxaabi la odhan jiray abi umaama radia allaahu canh su-aal buu weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebiga ku yihi murnii bicamalin yanfacunii allaahu bih rasuulka ilaahay waxaad ii fartaa ood ii sheegtaa camal ilaahay u igu anfaco camal aan ajri iyo abaalmarin weyn ilaahay kaga helo oo la igu anfaco diin ahaan markaa rasuulku waxau uhi calayka bisawmi fainahu laa cidla lah soomka ku dadaal wax u dhigmayaa ma jiro
waxaa kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiduu ka warinayaa sugan xudayf wuxuu ihi man khutima lahu bisiyaami yowmin dakhala aljanna qofka isagoo sooman adduunka ka taga ee geeri ay ku timaado ama gaari ha la qalimo ama mowtulfaja ha u yimaado ama ee dhinto isagoo sooman jannada ayuu horay ka galaa buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi bnu camar wuxuu isaguna ka warinayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa inagu dhiirigelinaya guud ahaanba soomka alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soomka iyo qur'aanka labadaasi waxay u ergeeyaan addoonka maalinta qiyaamaha ergada camalkan saalixa ah ilaahay wuu aqbalaya soomkii waxa uu leeyahay rabbi manactuhu aطacaama waashahwa fashaficnii fiih ilaahay ow addoonkan waxaan u diiday cunadiisii iyo hamadiisii iyo wixii uu jeclaa ilaahw ergada iga aqbal qur-aankiina waxa uu leeyahay rabbi manactuhu الnawma bاlleyli fashaficnii fiihi qaala fayushafacaan ilaahay ow addoonkan waxaan u diiday inuu habeenkii seexdo qur-aanka haddaanay u akhriyayay uu igu cibaadaysanayay ilaahay ergada iga aqbal dee waa kalaamkii ilaahay waa sifadii ilaahay ilaahay ergada wuu ka aqbalayaa marka qur-aankii iyo siyaamkii iyo qiyaamkii waa sarajooggii akhrintii qur-aanka la akhriyayey iyo soomkii marka inaynaan u yaraysanin aynu aada ugu dadaalno wakhtiga aynu ka faa'idaysano ayaamaha aynu fursadda haysanno intaynu noolle fursad buu ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala beri dhoweyd waxaa la siiyey shahaadada caalamiga ah ee loo yaqaano nobel barayska nin reer jabaana ninkaasi daraasaduu sameeyey baa wuxuu ku soo helay arrin cusub oo ah qofku hadduu wiiggii soomo 2 cisho ama 3 cisho soom dee kan islaamka kama hadlaya isagu hadduu naftiisa qadiyo buu ku leeyahy hadduu naftiisa qadiyu gaajaysiiyo 8 saacadood laga bilaabo ilaa 16 saacadood usbuucii walba 2 cisho ama 3 cisho jidhkiisu wuxuu gubayaa oo dib uu isticmaalayaa u cunayaa alkhalaaya almeyit unugyadii dhintay iyo waxyaabihii dheeraadka ahaa sida subagii iyo duhuuntii sidaa daraaddeed qofkaasi wuxuu ka badbaadayaa cudurrada uu ka mid yahay kansarku ee khatarta badan oo ku yimaada cunnada badan iyo inaan jidhkii cunnada marnaba laga kala joojininba oo dib uu isu safaynayaa buu leeyahay jidhku arrintii markii lala eegay waxay noqotay arrin sax ah taa uu sheegayaana ee daraasadda gadaalay ku ogaadeen gaaladuna waxa weeye tanuu nebigu ka sii warramaya calayhi salaatu wasalaam iminka halkan aynu ku hayno muxuu nebigu inoo sugneeyey bil walba 3 cisho in la soomo isniinta iyo khamiista la soomo shacbaan la soomo soomkaa daadsan ee sanadka dhexdiisa ku daadsani waa kan ilaahay addoonka ruuxdiisana uu ku caafimaadinayo jidhkiisana uu ku caafimaadinayo waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa fadlina waxaa la yidhaahdaa cadowga kaa soo horjeedaa wixii uu ku qiro markaa wax wal oo sharcigeennu inoo jideeyeyba wuxuu leeyahay faa'iido dhinac walba ah inaynu ilaahay ka guddoomanno fursaddana ka faa'iidaysanno kaynu isfara inaynu isu dardaaraynaa waa kaas weeye allaahuma taqabbal siyaamana wa salaatana wa sadaqatana wa qiraa'atana wa acmaalana